Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo weliyo wasiirka waxbarashada ayaa soo xiray imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka oo si guul iyo nabadgelyo ah ku soo dhamaaday. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa booqday xarunta Gahayr ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed iyo iskuulka Cismaan Geedi Raage oo ah halka uu ku dhameeyay Ra'iisul Wasaaruhu dugsiga sare kana mid ah goobaha imtixaanku ka socday maalmahan si uu ogaado xaaladda ardayda gashay imtixaanka uguna dhiirigeliyo inay sii wadaan heerarka kala duwan ee waxbarashada. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa ardayda Soomaaliyeed u dhabaradaygay waxbarashada u rajeeyay guul waxa uuna ku buuriyay inay dadaalkooda sii laabaan. imtixaankii markii soo baxday suuqa soo baxay la gaaray qaraar ah in dib loogu noqdo. waan ogahay in culays badan gaartay waxay ahayd qayb dowladnimada ka mid ah qayb sharafta barashada iyo mustaqbalkiina ka mid ah sababtoo ah haddii suuqa ay geli lahayd in la siiyey shahaado imtixaankoodii hore loo sheegay in la gashay qalbigiina ay wuxuu dhibi lahayd qalbiga wasiirka iyo waalidiintiina ay wuxuu dhibi lahayd in maalinta ugu dambeysay aan ku jiro iyadoo waxyeelada aysan ugu dhicin ilaahay noo geeyey imtixaankiina inaad nabad ku dhamaysataan si cadaalad ahna loo sixi doono waa sharaf idin soo reebay idinka iyo wasaaradda iyo waalidkiinba waan ka raali garaynayaa dhibkii yaraa aad qabteen waqtigii ku jirnay inuu fasaxo mar labaad waxaan idin leeyahay bale imtixaankaa gelaysaan iyo cutubka cusub oo noloshiinu ay hadda bilaabi doonto waa tallaabadii ku xigtay ee aad ugu soo dhowaan doontaan inaad hoggaanka dalka la wareegtaan. waxaad soo gaarteen waqtigii maskaxdiinna iyo xooggiinna iyo hamigiinnuba uu aqbalayay inaad sawirtaan mustaqbal noocaa ah ayaa rabtaan dadka Soomaaliyeed inaad u samaysaan iyo idinkiiyo qoysaskiina idinkaa ugu badan dalka oo 70% ka badan idinkaa 25 idinkaa u dhalinyaro ah idinkaa maskaxdiinna iyo qalbigiinna ugu caafimaad badan yahay cidda la rabo dalkan inay meel gaarsiisiin waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay idinka gaar ahaan inaan idinla wadaago halkan aad fadhidaan waa meesha aniga aan iskuulka ku dhigtay markaan yaraa 4 sano isku xigtaan halkan fadhiya waa meesha nolosheeda kusoo bilaabatay meel fiican fadhidaan. wasiirka waxbarashada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa u mahad celiyay Ra'iisul Wasaaraha iyo dhammaan dadkii gacanta ka geystay qabsoomidda imtixaanka maanta soo dhamaaday. bismillah muxuu ahaa maantay wasaaradda waxbarashada iyo bahda waxbarashada dhammaanteed waxaa sharaf u ahaa in uu na soo sharfay Prime Ministerka uu kormeer nagala qayb galay maalintii u dambeysay imtixaanka aadaan uga mahad celinaynaa aaday muhiim noo ahayd in Prime Minister ku yimaado maxaa yeelay hadalkiisa inta badan ardada waxaa loo sheegaa inay yihiin madaxdii mustaqbalka maanta waxaan nasiib u yeelanay inuu tago Prime Ministerka fasalkii uu 4 sano wax ku dhiganayay arday imtixaan ku galayso meesha waxaa ardayda uga muuqatay in haddii fasalkan Prime Ministerku uu ka soo baxay iyaguna ay noqon karaan Prime Minister iyo wax ka wanaagsan arrintii loo sheegi jiray ardada oo ahayd in mar walbaba ay yihiin mustaqbalkii waddanka maanta in uu si practical ah oo muuqato uu mataqaanaa ardada mithaal u siiyo runtii waa uga mahad celinaynaa Prime Ministerka oo runtii mar horena nagu taageeray naguna mataqaanaa korjeegteeyey imtixaanka ku celintiisii iyo qaadidsiisii iyo diyaargarowgiisii iyo howlaha faraha badan oo la qabtay oo mar walba la socdayna waa uga mahad celinaynaa waxaan uga mahad celinaynaa inuu maantay
muxuu ahaa uu suuro geliyey in uu muxuu ahaa ardadii imtixaanka gelaysay oo hor istaago la qaybsado waxa ay dareemayaan runtii wax weyn oo lagu farxa ay ahayd maantay waa maalintii u dambeysay imtixaanka haddii eebe idmo 1:00 duhurnimo wixii ka dambeeyo imtixaanka wuu soo ururayaa waxaa loo gudbi doonaa sixitaankiisii waxaan u rajaynayaa ardada Soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo waalidiintaba guul ayaan u rajaynayaa imtixaanka shahaadiga ee sanadkan ka qayb galeen 31258 arday ayaa waxa uu si isku mid ah uga socday magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka qaar laga soo bilaabo 17kii bishii shanaad ee sanadkan 2019 Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.